Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawayaasha ku xiran kanaalkeena Doctoressa Jia, ku soo dhawaada barnaamijkeena taxanaha caafimaadka toddobaadkani. Waa anigoo ah Doctoressa Khadijo Abuukar. Waxaad inaga socotaan channelka Doctoressa Jia. Kow basbaaska waxaa ku jira maado loo yaqaan kainin. Waxay maadadan hoos u dhigtaa kolestaroolka, waxayna hoos u dhigtaa cudurrada wadnaha iyo kuwa ku dhaca sanbabka. Mooska wuxuu qofka dareensiiyaa dheregsanaan, sidaa awgeed dadka cayilan oo cunida aan xakameyn karin waxaa lagula taliyaa in ay cunaan moos aan si fiican u bislaan. Marka qofka kabaha cirbaha dhaadheer uu gashan yahay, miskaha waa ay qalloocmaan, simaha iyo dhabarka feeraha qofkana horay ayuu u soo baxayaa. Xiro kabo degan. Carruurta marka ay xanuunsan yihiin ama ay wax dhibsadaan, waxay bilaabaan in ay suulka nuugaan. Ha ku qasbin in ay joojiyaan, maxaa yeelay wuxuu rabaa inuu suul nuugista isku sasabo. Saliidda xabasoodada. Xabasoodadu waa daawo u fiican jugta iyo kala-goosyada, xanuunka murqaha iyo seedaha. Waxay dejisaa bararka, waxay yareysaa xanuunka, sidoo kale waxay kobcisaa bareertada laabtooyinka.